Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada mar kale muuqaal cusub kaas oo kaga hadli doono 5 qodob oo naftaada ku hormarin kartid. U fikir inaad tahay qof isku filan markasta waxa ugu mudan oo muhiim ah waxa uu qofku niyadiisa ku hayo kana dhaadhiciyo. Aamin inaad tahay qof dhammaystiran oo leh awoodo badan. Ku xidhno naftaada oo la sheekayso, fahan waxyaabaha aad ku wanaagsan tahay, kuwa aad ku yar liidatana isku day inaad xoojiso. Ha ku odhan naftaada ereyada qalbiga dila sida waxba kuma fiicnid, tamar ma lihid, waad hoosaysaa ama waad liidataa, qayrkaa way kaa horeeyaan iyo wixii la mid ah. Aamin naftaada. Qofka koowaad ay tahay inaad ka hesho aaminaad iyo kalsooni waa naftaada. Ku kalsoonoo qofka aad tahay. Ma jiro qof kuu dhigma ama kula mid ah adduunkan, lamana soo helayo qof meel kasta aad iska mid tihiin oo beddelkaaga noqon kara. Waana sida Rabbigeena abuuray ugu talagalay. Sidaa darteed waxaa kuga ceebiyo nusqaan ah inaad kuma lihi noqo kelidii noole, balse adigoo Allihii ku abuurtay isku xidhaya oo isaga weydiisanaya gargaar. Haddana isku day inaad qof ahaan muujiso adkaysi iyo isku filnaansho. Ma jirto mana dhacdo inay kugu timaado dhibaato oo aan xal lahayn. Keliya waxaa kula gudboon inaad indhaha kala furto kuna fakarto xal sida aad u heli lahayd. Inaad noqoto qof nidaamsan waa arrin shakhsi ah. Dadka oo dhan inay kula mid ahaadaan shardi ma aha. Inaad noqoto shakhsi nidaamsan waxay u baahan tahay inaad naftaada ku leeliso iyo la qabsi. Wax walba oo naftaada mashquulin kara waqtigaagana diliya ka fogow. Ku dadaal shay faa'iido badan oo naftu jeclaysan karto. Horumarinta naftu waa ay qaab badan tahay. Waxay noqon kartaa waxbaridda naftaada si aad u horumariso aqoontaada. Waxa ay noqon kartaa in aad hore u kacdo oo aad wajahdo waxyaabaha ku cabsi geliya si aad sare ugu qaado kartidaada. Waxa ugu weyn ee aad dunidan ku haysataa waa waqtiga iyo caafimaadka. Waqtiga xooli kuma socdo sida kaa dhaadhacsan ee adiga aan qabanin wixii loo baahnaa. Daqiiqadii ku dhaaftaa ha sugan inay soo noqoto. Ka fir waqtiga aad haysataa inuu ka yaryahay inta aad filaysid. Kobcinta shakhsiyeed waxay awood noo siinaysaa inaan garawno qaybaha nolosheena ee u baahan kara horumar iyo abuurista. Awood noo sahlaysa inaan gaarno ujeedooyinkeena. Haddiiba kalsoonaanta naftu tahay furaha guusha, kalsooni daraduna waa furaha fashilka. Ma jiro dhib ka weyn inaad naftaada ku kalsoonaan weydo oo aad xumaan ama awood darri ku malayso, waayo ma jiri doono ruux ku kalsoonaan doona maadaama aad adiguba isku kalsoonayn. Baro sida aad u jeclaan lahayd shaqadaada. Qabo waxaad jeceshahay, jeclo waxaad qabanayso. Baro khaladaadkaaga, horumari guusha wixii kaa baaqay. Ha cabsanin. Waxqabad la'aantu waa noocyo cabsida iyo shakiga ka mid ah. Baro kala mudnaanta. Samee isticmaalka ugu fiican waqtigaaga. Ku adkaysigu waa tayada ugu joogtada badan hoggaaminta guusha. Xusuusnow, shay kasta oo aad qabanaysaa wuxuu dirayaa fariin. Go'aanso fariinta aad rabto inaad adduunka u dirto.